maamulka gobolka Banaadir dhammaan mas'uuliyiinta halkan joogta iyo hay'adda samafalka shacabka oo runtii sanadkii labaad na tustay sida ay uga go'an tahay in shacabka tabaalaysan ay afur helaan. sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa in hay'adda samafalka shacabka in la garab istaago. marka waxaan rabnaa ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeedba inay hay'adda samafalka u diyaar garowday inay dadkaas quudiso in lagu saacido wax alaal wixii lagu saacidi karo, ha noqoto raashinka oo qaleelka ah, ha noqoto wixii dhaqaale ah, si barnaamijkan u noqdo mid qof kasta oo gobolka Banaadir jooga oo u baahan inuu afur helo si uu u helo. maanta iyo wixii ka horeeyaba waxaa noo socday isku tashiga inaan xoojino oo aan ka kaaftoonno inaan waxaan cunno dad ka sugno. nasiib wanaag 15,000 oo qofood inay afurin hesho maalin walba oo u dhiganta 450,000 oo qofood oo 17 degmo degan oo qaarkood ugu xoog badan yihiin barakacayaasha. waa waxaan la malay karin ay maamulka gobolka iyo shacabka gobolka Banaadir ay dhaqaalahooda la baxaan hadday yihiin ganacsato iyo hadday yihiin maamul. waxaan galabta halkan ku bixinaynay galab walbana lagu bixiyaa sidii Ramadaan oo u dhashay afur ay na soo gaarsiiyaan oo dadka danyarta shacabka deegaanka degan loogu talagalay hay'adda afurinta shacabka iyo gobolka Banaadir ay na soo gaarsiiyeen taasoo noola keeno ilaa 200 oo qoys galab walba halkan maaragtay lagu afuriyo. waa uga mahad celinaynaa hay'adda iyo gobolka Banaadirba. galabta goobjoog u nahay qaybinta raashinka afurinta oo ayna soo gaarsiisay hay'adda samafalka shacabka oo aan ku afurinaynay ama aan u qaybinaynay dad barakacayaal ah oo degan degmada gaar ahaan kaamka Dooxa iyo agagaaradiisa. waxaana la soo gaarsiiyay 450 qofood inta loogu talagalay. dadka halkan deganna wuxuu kor u dhaafayaa 5,000 oo qoys. runtii aad u kooban yahay laakiin wuxuu kaafiyay dad badan oo baahnaa oo laga yaabo in wixii ku afuraan ay haysanin. sida ujeedeenba afurkaan maanta qaybinno oo maalin kasta aan qaybinno oo aan gaarsiino dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan degmadan Warta Nabadda haddii ay ahaan laayeen dadka barakacayaasha iyo weliba dadka tabaalaysan ee xaafadaha ku nool. raashinkan 600 oo qofood ayaa loogu talagalay maalin kasta in degmada Warta Nabadda raashin lagu keeno hay'adda samafalka shacabka ee keento maamulka gobolka Banaadir. ugu horreynna waxaan rabnaa inaan ugu mahad celino dhammaan hay'adda samafalka shacabka oo runtii u istaageen in ay maaragtay dadka masaakiinta ee tabaalaysan ay gaarsiiyaan cuntadaas iyo weliba maamulka gobolka Banaadir ayaguna sidoo kale habka fududeynta iyo weliba qaabka wanaagsan ee ula shaqeeyaan.